وعادن حسين إبراهيم كمده موت بجالي أول هور ليترك هالك الدور وح شبين جرني ليترك وحلي يبين جري أول هورة وهذه فرتني شن سنتي هذا السرقة زائد أو يكون مع الشلالك هذا وحيقصد در سنتي ثمان هل دور يحاول ثمان شن سنتي هالك الليتر مركز السرقة زائد واي ما أرد حنلاقي هذا dadka hadda mootooyinka inta badan hadda kirada lagu waday oo aska dhigay mad oo la magaalada saxmad zaid ahaan jirtay had ma laha saxmade waxa keenay sarkaac oo ku imaaday shidaalka marka waxaan leeyahay hadda dawladda Soomaaliya waxaan leeyahay waxaan ka codsanaynaa waxaan ku shaqaysanaynaa boqolkiiba 90 boqolkiiba 50 waxa lagu nooleeyahay mootadan dhalinyarada waxaan leeyahay shidaalkan waa sidii hadda xawaaraha ku socda zaid waxa lagu bedelo insha Allah warbaahinta waa salaama intaan ku soo gabagabeynaa kaalmaha midaan tigada ugu ragaysan oo dekada antaan feelka hadda loo galayna waa u jeedaa ilaa hadii koorsa aad wada oo feel maanta gasho koortada ka dagay ilaan sababta sarkaac oo ma arday feelka hadda ku imaaday intaan masuugi kara ku dhaaqo qiimaha hore sarkaac waa zaid waa qaali waa qiimaha ka hooseey awal hore ay kaalantaan marka sab ayada ugu ragaysan kaalmaha kala ma fahant sababta dekada ku yaalaad waakan caalalka dhuumanka hadda wax yar oo maarta wax yar isu jiraan marka sidaas awgeeda yaa had raqiis u tahay ilaa waxa isku hermay hadda suuqyaraas oo xamar jajab feela la maraa wallahi shidaalkan horta zaid murug ani mootadana wata cidna waa ka biila anta ma arday wax kasta ayaan ku maaraya mootadana kiraa ku wada maalintii waxa isticmaal hadda $10 ayaan ku kiradeedu waa mid bari kara $10 in ay shidaal ay ugu cunto $10 ma arday aan kira aan ku bixi mid bari kara marka shidaalka zaid waay hadda dhalinyaro badan oo asxaabta ay kamid ah ayaa mootooyinka iska dhigaan sababtoo shidaal la'aan awood waxaan codsanaynaa in shidaalkan sidaan wax lagu bedelo oo ma arday ganacsigan noo naxariisto walaaleen ganacsiga in noo naxariisto oo shidaalka zaid ayada xawaaraha u qaadeen ma aha in hoos u soo dejiyaan oo dadka masaakiinta la eego bajaajley baan ahay marka sicir barar culus baan ugu dhacay oo la yareysan karin hadduu saan ku sii socdana kollayba waa la iska dhigi karaa wax kale daawo kale male shidaalkanna waxaa lagu soo raacayaa xoogaa naxariis buu leeyahay boqolkiiba boqol uu naxariistaa dadka kalena waa iska waraabo iyagoon waxiiba aan soo gaarinayba kor u iskaga qaadeen asagana laakiin caadigiisii ku wadaa insha Allah waa la qeyrayaa $5 aan ka shubtaa maalintii maya ma buuxinayso intaasaaba lagu dhargi jiray awal hore waka hadda shidaalka aad u kacay meeshii oo $1 lagu shuban jiray $1 lagu shuban jiray hadda laakiin aad iyo aad buu u kacay marka waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu sidaan hore noogu soo noqdo waxa isu dhow ma tagaad wax la heli kara maaha kaalintii libaaxay ka gashay dhibaatada hadda jirta waa qolooyinka kalena waxaan ka rabaynaa wax macquul ah gadaa macquul ah waa ka jaban tahay ilaa 20 iyo 25 ka sii jaban tahay intaas ay isku raaceen saasa loo ayadana dhig balaf muu dhigahayso hawsheeda waa wadataa Allah kaalmeeye annagana Allah noo kaalmeeyo Allah noo yasiro saar raqiis Allah noo keeno waxaan ka codsanaynaa ganacsiga in aad loo fiiriyo shidaalka culeyskana la saaro oo wali hadda kan qaaligan lama soo gaarin kii hore la yaala marka waxay ku iska talaabo 2 talaabo 3 talaabo iska qaadeen Allah u kaalmeeyo marka aheed waxaan ka cabanaynaa shidaalkan oo sarakaca aad nagu balaartay dawladda ku meel gaarka waxaan ka codsanaynaa dawladda federaalka waxaan ka cabsanaynaa inay shidaalka noo soo raqiiso kaalmiye kale iyo kaalmahan aad u raqiisan shidaalku uu jaban yahay kasoolala anukoo ka imaado degmooyin dheer ka imaadeeno anukoo dad wadna ayaa feel u galnaa meeshaan sababtoo ah shidaalka waa ceer nagu raqiisan asdayna bismillaah magacaygu waa Ibrahim Isaaq Macalin Maxamed waxaan aad ugu caawinaynaa shidaalka sicir bararka ka jira Muqdisho ayaan aad iyo aad ugu caawinaynaa shidaalkii mootoley haddii aan nahay waa ku dhab qabnaa aad baan ugu dhab qabnaa marka waxaan caawasho aan ka nahay shidaalka kacay oo maaragtay saidka u kacay ayaan caawasho ka nahay marka waxaan rabnaa inuu shidaalkii maaragtay qiimihiisii iyo booskiisa lagu soo celiyo
mootoley haddaan nahay ama gawaareley aan nahay waxaa waaye aad buu noo saamaystay shidaalkii oo qaali ah. marka waxaan aad u jeclaan lahayn inuu shidaalka uu maaragtay ganacsatada ay noo soo maaragtay raqiisiyo ma laga noqon karaa shidaalku waa sarakaca sidaa sheegtay sarakaca ku yimid sax bishii barakeysan rabadaana foodi noogu soo haysaa sax marka isleedihiin haddoo shidaalka saan kusii socdo inaad dhammaan gabi ahaan dhigtaan maya saas waaye hadda mootoleyda waxay u qaybsan tahay laba qaybood oo qaybsanta mootoleyda labada qaybood dad waxay wadaan mootoley dad kiray ku wadaan saas sheegtay dad kiray ku wadaan dadna ayagaa iska leh hadda aniga mootada aan wato anaa iska leh laakiin dadka hadda kirada ku wado yoomi waxay dhiibaan $10 marka shidaalka hadduu kacay $10 oo kirana laga rabo dadkaas waxaa mar hore bay dhigeen hadda shidaalka markuu kacay adii 10 bir camal markuu kacsan yahay shidaalkii wixii kiri ku waday dhulka ay dhigeen sidaas darteed marka hadda waxaan ku shaqaystaa dadkii mootooyinka ayaga lahaay oo dadkii ninka lahaay uu wato oo hadda mootada anaa wato anaa maana iska leh marka anaa iska leh ninkaan anaa kale hadda waxaa waaye dadka dhan ay wataan ay maya banaanbax weli maan dhigin laakiin haddii isaan kusii socoto banaanbax waa iska imaadi doonaa hadduu ilaah yidhaah صح maya horta shaqada lama joojin karo waxaa loo joojin karin dadkii waxaa waaye xamar waxaa waaye ceelasha biyaha laga imaanayaa gobollada degmooyinka kala duwana laga imaanayaa saas darteed marka lama joojin karo shaqada qofka meesha $2 ama $3 uu ku raaci jiray inuu lacag ku darana ma ogolo ilaa shidaalka hadduu kacay inay ayagan lacag ku daranay ahayd si hadda beeladoo kale lacagay waa ku dareen meesha 10 kun loogu raaci jiray 15 kun laga dhigay saas darteed marka bajaajleyda marka lacag kumaysan darin oo beec ku qaadi jireen wali haddana ku qaadaan marka lama joojin kara banaanbaxna weli maana sameeynin laakiin haddii arrintaas aan sii ahaato inaan banaanbaxan u dhici doonaan filaynaa duulaa yaraa waxaan codsanaynaa shidaalka ganacsatada aan ka codsan lahayn inay shidaalka naga raqiisayaan oo sixir bararka ay ku imaado shidaalka inay naga raqiisayaan oo sidii hore ay ku soo celiyaan si ka fiican intaas aan codsanaynaa meeshan feelka loogu jiraa iyo meelaha kale kaalmaha kale maxay kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin kaalmaha kale shidaalka waxay gadaan hal litirka waxay gadaan 1.4 ay gadaan laakiin kaalintan hadda oo dekada ka dhow waxa way kaalinta waxay ugu fiican tahay 1.15 ay gadaan meeshan ana hadda waxaan ugu imaaday teleexan ugu imaaday iskuuska teleexan hadda ugu imaaday oo soo faraq gubay saas darteed saan shidaalka raqiisto aan u soo raadsaday marka waxaan jeclaan lahayn marka litirka in nagala dhigaa 0.8 meelahaas in la keeno ayaan aad u jeclaan lahayn 0.6 hadda maran 0.6 u ahaa mar 0.8 u ahaa marka u dambeysay hadda 0.9 u ahaa marka meelahaas waa lagu shaqaysan adiga wixii $1 ka yar waa lagu shaqaysan karaa laakiin wixii $1 ka badan sixir barre ugu tahay aad baan ku salaam alaykum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين magacaygu waa Farxaan Cabdullaahi Cali waxaan ka mid ahay dadka ka shaqeeya magaalada Muqdisho ka shaqeeya adeega bulshada oo ka mid ah bajaajta waxaan awayaan aad u cabanaynaa shidaalku aad u qaaliyoobay maciishada kale aad u qaaliyowday sida adeega raashimada shidaalkii wax walba aad u noo qaaliyoobeen waxaan ugu baaqayaa dhammaan ganacsatada gobolka Banaadir inay dhammaan u naxariistaan shacab weynaha Soomaaliyeed waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa dhammaan inta u naxariisanaysa oo shidaalkeeda ama adeegeeda u dhimrinaysa dadka Soomaaliyeed waxaan sidoo kale codsanaynaa inay dowladda Soomaaliya ay dadka uga dhimriyaan adeegyada maciishada oo daruuriga ah sida adeega raashinka bariiska baastada shidaalka iyo wixii la midka ah sidaas darteed wadanka waxa weeyaan waxyaabo badan baa ka jira shaqo la'aan baahsan baa ka jirta adeegii oo dadku shaqaysanayeen aad u qaaliyo shaqo la'aantu aad u baahsan iyo wax walba aad u fara badan marka dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inay si toos ah iyo
si dadbanba ay ugu naxaan dadkooda soomaaliyeed sidoo kaleeto waxaan u sheegay ganacsatada soomaaliyeed inaysan dadka aysan dhiig miirato ku noqone ay dadka u naxariistaan maadaama ay dadku yihiin dadkay u shaqaynayeen marka waad mahadsantii dhammaan reediyaha iyo tv-ga qaranka waayihii dambe shidaalku aad kor u socday 65 67 noo ahaa ilaa iyo 50 oo noo ahaa liitarkii hadda liitarkii 1.3 1.4 1.2 aa la gadayaa shidaalka magaalada muqdisho sidaas darteed aad ayuu u qaalisan yahay dadka dhammaan way ka cabanayaan mana sii wadi karan haddii oo xaaladaha noocaan oo kale ay jiraan gaadiidka dadku shacabkuna way ku dhiban yihiin shirkadda tigaad petroleum waxa badan ay xoogaa uga duwan tahay shidaalada gobolka banaadir lagu gadayo waa shirkadaha ugu raqiisan ayay ka mid tahay sida hadda kuu muuqata waxay gadayaan 1.15 liitarkii halka kuwa kale ay gadayaan 1.25 1.3 1.20 iyo wax ka badanba bal kuwa noolacyo qala inay $1 iyo bar gaarsiiyaan meelaha qaar marka waxaan codsanaynaa ganacsatada Soomaaliyeed ee gobolka banaadir ay u naxariistaan dadkooda oo mar walba ay yihiin tiirkooda ay ku tiirsan yihiin haddii ay lumaan dadka ganacsatada oo shaqaalaha oo gobolka shaqeeya ay shaqayn waayaan ayaguna ma shaqayn karaan sidaa darteed waad mahadsantihiin tv-ga iyo dhammaan idaacadaha gobolka waxaan rajaynayaa in codkaygu gaaro meel walba oo qof Soomaaliyeed loogu naxariisanayo waxa weeyaan aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed ama santiin tv-ga bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Cabdulaahi Maxamed Daahir ku nool magaalada Muqdisho ka mid ah bajaajyada gobolka Banaadir waa dareemi kartaa culayska jira ee shidaalka iyo culayska dhibaatada haysato shidaalka nuuq qaaliyoobay kaalintan ayaan saf u soo galnaa waan meesha ugu shidaalka raqiisan dhibaatadan waa sii badanaysaa marka waxaan ka baqaynaa inaan mootooyinka iska dhigno haddii intaan wax laga sii qabo arrintan wax laga qaban marka waxaan codsanaynaa dawladda ka codsanaynaa ee dadka maaragtay ganacsatada inay maaragtay noo naxariistaan oo maaragtay dhibaatadeena ay dib u fiirshaan ilaa nolosheenii waxay ku xiran tahay waa laamigaan ay ku xiran tahay mootadaan ay ku xiran tahay mootadan waxay ku socotaa waa shidaalka duu sarqiisanne xaaladdeenu way cuslaanaysaa marka waxaan rajaynayaa maaragtay in maaragtay arrintan dib loo fiirsho insha Allah oo maaragtay yani ganacsatada ay noo naxariisto shidaalka duu caalamka qaaliyo anaga waxa waaye dhibaatadeeda ay leedahay laakiin waxaan u baahannahay naxariisaan u baahannahay bismillaahi raxmaani raxiim liitarka hore waxaan ku qaadan jirnay 0.7 aan ku qaadan jirnay haddana waxa waaye 1.15 sent waay marka culayska waa sii badanaya maalinta ka dambaysa kor u sii socdaa haa kaalmaha kale waa 20 waa $1.20 waay kaalintaana ugu raqiisan kaalmaha kale xoogaa sarakaca ka jira midaana ugu raqiisan tanna safaa loo soo galaa waa arkaysaa sida safka loogu soo galaayo waxaan salaaya maartay in shidaalki